السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. خيارت سو دوادا شالي وحاني لو ذاقي أما يدين شاقي إن شاء الله وصو ديارين دورنا برنامج أنا وقهد لأنه أرمها دولة قبل أيضا كجيرا دالكن إلو يقانا كونتسك ما أنت وحان جعل هذي إن أن بلسكو دايو إن تاريخ أن ديب أغير نقلنا سي ay dad badan oo fahansaneen ay u fahmaan meesha countigan ay ka imaatay iyo dalkan wuxuu u qaatay waxa loo yaqaana devolutionka ama countiga la dowladda hoose loo yaqaana caalamka waxaa ka jira nidaamyo badan. waxaa jira nidaamka loo yaqaana unitary state oo hal dal oo dowladda dhexa wax kasta ay xukunto. dhaqaalihii bay xukuntaa, awooddii kale ay xukuntaa, ciidankii bay xukuntaa. midda labaad oo waxa loo yaqaano federal ee hadda dowladdana Soomaaliya ka jiro oo ay dowlad goboleed oo stateya leh. midda saddexaad waa middan hadda Kenya ee loo yaqaano central government laakiin la daadejiyey dhaqaalaha qaab loo yaqaano devolution. marka dalkan 1963 markuu qaatay xorriyadiisa waxaa ka dhisantay dowlad awood leh, xoog badan, dhaqaalihii iyo awooddiina kulli iskugu keentay caasimadda Nairobi. sidaa aawadeed dacati fara badan iyo cadaalad darro xoog leh ayaa ka dhacday. gobollo badan oo ka tirsan dalkan waxay dareemeen kobac xumo xagga dhaqaalaha, waddo la'aan, caafimaad darra, tacliin liidata iyo dhibaato kale oo fara badan. annaga oo kasoo jeedno gobollada waqooyi waxaan qayb ka ahayn gobollada aad loo dayacay in yarna ha ahaatee wax faa'iide ay ka helin dowladda dhexe. dowladdu waxay noqotay inay ka faa'iidaystaan keli dadka jooga caasimadda Nairobi iyo gobollada uu kasoo jeedo madaxweynaha ama dadka madaxda ee dalka markaa dalka xukumay. sidaa aawadeed wadamo badan oo ay ka mid tahay gobollada xeebta, gobollada galbeedka, Nyanza iyo Western iyo gobollada waqooyi waqti badan waxay u ololeeyeen inay helaan dowlad dhaqaalihii iyo awooddiiba iskugu imaanin Nairobi. marka hore waxaa jirta dood aad u kulul oo looga hadlayo waxa loo yaqaana parliamentary system ama dowladda laga xukumo baarlamaanka ama presidential system, dowladda ee xukunta madaxtooyada oo awoodduna madaxtooyada iskugu geey. dood badan kadib waxaa dhacday in la isku fahmi waaye in la qaato presidential systemka ama parliamentary system. waxay noqotay marka in la isku imaado wax labada u dhaxeeya la raadiyo oo nin kasta ku qanci kara. wixii u dhaxeeyey labadaas ayaa wuxuu noqday in la helo waxa hadda loo yaqaano devolution ama dowladaha countiga. dalka waqtiguu xorriyadda qaatay waxaa ka jirtay 47 degmo. waxaa la isku afgartay in 47 degmo ay noqdaan dowlad goboleedyada dowladaha countiga. sidaa aawadeed ayaa anaga gobolkanaga waqooyi bari inoogu soo hagaagtay 3 county ee Garissa, Wajir, Mandera. macnaheeda ma aha in Soomaalida ay countiyaasha keli wax ku lahayn. Soomaalida waxay degan tahay countiga Tana River, countiga Isiolo, countiga Nairobi iyo countiga Mombasa iyo countiyaal fara badan oo kale. laakiin waxaan ka hadlayaa gobolkii waqooyi bari la oran jiray waxaa ka soo baxday 3daas county. ujeedada in countiyaashan la helo waxay ahayd 3. midda koowaad in shacabka loo dhaweeyo oo ay helaan madax ee la xisaabtami karaan
la joogaan markay rabaan ay arki karaan. midda labaad in shacabka horumarka laga sameynayo dalkooda ay ayaga xor u yihiin inay priority-ga siin karaan waxay markaa ayada ay u arkaan inuu yahay dhibaatada haysato, sida arrimaha biyaha, arrimaha tacliinta hoose, arrimaha caafimaadka, arrimaha waddooyinka, arrimaha hindaha iyo dhaqanka, iyo hataa arrimaha diinta oo countiga u madax bannaan tahay. midda saddexaad waxay ahayd in awoodda dalka la iskugu geeyay Nairobi oo dhaqaalaha dalka la baahiyo, lacagta dalka soo gashana laga dareemo meel kasta oo dalka ka mid ah. nasiib wanaag 2005 ayaa waxaa la keenay dastuur loo yaqaanay Wako Draft ama Bomas Draft. sharciga asaga 2005 aftiyaa loo qaadi baa la yiri, waa lagu guuldareystay. 2007 dalkan waxaa ka dhacay qalalaasa dad badan ay ku dhammaadeen. tii waxay keentay in markii la dhisay dowladdii hanti wadaagga, dowladdii isku keentay mucaaradka iyo muxaafidka, in la helo sharci cusub. 2010 waxaa loo dareeray in afti loo qaado, waana lagu guuleystay. sharciga asaga waxyaalo badan oo laga faa'iidaa jirta. waxaa ka mid oo aad ugu weyn arrimaha devolutionka ama county-yaasha. 2013 ayaa doorashadii u horreysay ee goboladan lagu soo doorto madaxdooda ee dhacday. 5 sano u horreysay waxay la kulmay county-yaasha, waxay la kulmeen caburin fara badan, xagleysi fara badan oo ay ku haysay dowladda dhexe. laakiin dagaal dheer kadib iyo maxkamadaha dalkan oo xoog leh oo mar kasta dowladda dhexe ka hor istaagayay inay burburiso arrintan county-yaasha, waxaa suura gashay in county-yaasha si fiican u saldhigtaan. marka insha allahu xalaqada dambe waxaan ooga hadli doonaa countigii 2013 imaaday sidee looga faa'iidaystay. dalka ma ka wada faa'iidaysteen? gobolka waqooyi bari ma ka faa'iidaystay? hadduu ka faa'iidaysan muxuu uga faa'iidaysan waayey? yaan soo dooranay? dadkii aan soo dooranay may ahayn dad hoggaan noqon karo u qalmo? oo mar kasta waxaan ku doodi jirnay in nagala tegey, dalka intiisa kale ee naga tegey, in nala gacan bidixeeyey, in nagala reebtay dhaqaalaha dalka. hadda laakiin maanta wiilashanada ee noo hayaan dhaqaalihii dalka qayb ka mid sideen uga faa'iidaysana? arrintaas ayaan insha allahu ka sheekaysani doonaa. maanta waxaan rabay inaan brief history yar oo sida county-yaasha ku imaadeen aan halkan kasoo joodiyo. marka insha allah xalaqada soo socoto, xalaqada 3 ilaa 10 xalaqadood aan ka sameyn doonaa ayaan rabaa insha allah inaad la socotiin. waa mahadsantihiin.